أرجع حنون باهي أرجع أبارت هميد دبل قال أنا في أرجع كار كل أبوك جاري وياه هو كاين بوس كدقة همانوس كجوهيدا أرجع سي هذا وصاق لي دم بكورنيا وصافة دم بكورنيا وحولي هاي جيل بكارت ولا قاضي نك دوف بولي هاي سانكر وحكا كان أرجع بيكور كودا أرجع هلا سوق قالوا وسارة عافمات كدق هنو سوق قالوا وحسيب بقنا لا جوجنا أرجع قلبه هلا نسوق قالوا هلا نسوق قالوا كل شيء عالي سيدا نقدين هو حايم هذا الدولة اللي نسوق قالها جرت وحبنا ما سوق قارين رفع بريسان مرحلة جبوتي بكاي مدل يري اتكلا عدلك عن جوجنا وإحنا سوق قارين ما جرتو وإحنا ما كانوا إلهي هاينو أجنا هاينا ما جرتو دولة وين نسوق قالوا أكل ضد عافمات بيو أنت وين نلا سوق قالوا إن واحد ضدك واحد دكاترة وتبدأ مجرتها ما جرت ما هينا ولا عافمات ولا دكاتر حب الأصبراء وإحنا كان ما هينو دابا جيل halka kaga talaan Soomaaliland kaga naalaa inna lillahi wa inna ilaihi jaamaco ka soo hadlay kala bayd oo arigiisi waxa noqday geelina uu ka daran yahay warkiisi cabashadiisuna wataa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نقدك كوهن صن dadkana hanuuniya dhammaan dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka gufaaco ka daawanaya Somali Canadian TV kana dhageysanaya Radio Borome CKMS 102.7 FM barnaamijka gufaaco maanta maalin Isniina bisha September 2025 barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa waxa roobab ka dhaceen gobolada galbeedka laakiin wali waxa taagan abaartii iyo saamayntii ay kaga tagtay dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka meel walba daawanaya waxa aan la socodsiinaya waxa idin arki doontaan xoolihii waxa ku dhacay dadkiina warkooga bada waxa aan markaa la socodsiinaya dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan maalmaha kan nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa masaajidka Madiina ugu soo galay dad yaabta sida ay u yihiin duruufaha iyo dharka ay xidhan yihiin iyo sida ay u yihiin kaba cagaagan wata nabiga sallallahu alayhi wa sallam markuu arkay wajigiisii uu madoobaaday xadiiskan waxa wariyay Jariir ibn Abdullah al-Bajali nabigu markuu arkay dadkii wajigiisii uu isbedelay asxaabtiisii buu isku yeeray wuxuu yidhi bal isku kaalaya asxaabtii waa loo wardiray way isku yimaadeen wuxuu ku dul akhriyay aaladaada waa taqaanaana suuratu munaafiqiin aw ku celceliyay anfiqu mimma rasaqnaakum min qabla an ya'tiya ahadukum al-mawt war xawla baxa wuu ku celceliyay intaanay dhimashadu iimaan markaa nin walba uu dadaalay gurigiisii buu tagay wixii uu helayay buu soo qaatay mid baa biyo soo qaaday mid baa timir soo qaaday mid baa haruur soo qaaday mid kaanama buuro kale noqotay nabiga waxa cadaaday wajigiisii ilaa nabigu wuxuu akhriyay man sanna sunnatu hasana sunna wanaagsan qofkii sameeya ajarka ayaa laga wadaa iyo khayrka iyo wanaag ummadeennana waxa fiican inaan farno waxa xun iska kaashano aynu isku gargaarno ayay tahay walaalayaal dadka Soomaaliyeed sina uma kala maarmaan waxaan ognahay $700,000 baa loo dhiibay maamulka Soomaaliland guddiga abaaraha $700,000 ay inoo soo dirtay abaaraha mucaawano ah waana waxaynu dhaqan u ahaan jirnay had iyo jeer marka abaaru ay meel ka dhacaan inaynu isu gurmano waa ugu mahadnaqaynaa waa ugu ducaynaynaa ilaaha ka aqbalo insha allah sidii sheekh maxamed geedi sheegay walaalaha waxaa naga soo gaaray lacag $700,000 ah oo akaanka ku soo dhacday walaalaha aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sidii sheekhu sheegayna dee waa watacaawanu cala albirri wattaqwa bay soo hoosgelaysaa walaaltinimadu iyo wax istarku waa arrin runtii islaamka oo dhan dee looga baahan yahay garashadaana ilaahay subxaanahu wa tacaala dhowr sano ka horna saasoo kale abaaraha waxa ka dhacay lacagahaasi meelihii loogu talagalay sidii loogu talagalay umaanay bixin waxaan rabnaa dadka barnaamijka meel walba ka daawanaya ree awdala iyo dadka dawladda federaalka Soomaaliya ee lacagtan bixinayay dadkan lacagtan loo dhiibayo in xisaabtan u yimaado lacagtan
la xisaabiyaa dadkan loogu talagalay waa ammaana inna ammaanada waad ogtiin dhulka iyo cirka ayaa diiday in badanna dadku maanta siyaasiyiintu waxa ay ka faa'iidaan masiibooyin markay meelo ka dhacaan waxa aan leeyahay guddigii gobolka ee dhaqaalaha lacagta looma dhiibin guddigii federaalka ee maamulka Soomaaliland baa loo jiibay waxa aan leeyahay xasan sheekh iyo dawladdiisa dadkani markii ay abaaruhu ku dhaceen beledweyne dawladdiina idinku way idinku aamini waayeen markii beledweyne waxa ka dhacay rag bay soo direen toos ugu tageen idinku waydin nimankan ugu aragtaan maamul jira inuu yahay maadaama ay ummadii mar walba u leeyihiin haddaanan annaga wax la soo marinaynin waxba ma gaarsiinayna inay dulmi tahay soo ma ogidin cadaalad darrana tahay dadka awdalna ah aan leeyahay war waxaanad ku jirtaan wax laydinku daawan kara maaha adduunyadu waxyaalo fara badan bay inay qaban lahayd jayna waa kana waxba inay qaban lahaa dalal kale oo muslimiin way ku dhawaaqeen dad baa dushiina jooga idinku meeshii xitaa xisaabtanka ahaa ma joogtaan kii joogayna kii capacity u leh maaha leadership wax la yidhahdo capacity u leh maaha waa dad base role la siiyo oo aan kelmad odhane idinku inay tashataan ummadiinan u gargaartaan adduunyada ula hadashaan wax u weydiisaan miyaanay xaq ahayn mar walba miyaa laydingula hadlayaa in corruption laydinla yimaado wixii xuquuqaad lahaydan oo dhan baa maqan waydin arkaysaan haddana waxaad ku dhawaaqaysaan Somaliland wax Somaliland la yidhaahdo ma jiro waa maamul dad ay samaysteen aad arkaysaan dhexda iyaga dulmiga dhexdiisa iyaga ay ku hayaan reeraha qaarkood ay ku hayaan iyagoo wada dhashay waxaan leenahay war ka kaca meesha samaysta waxaad leedihiin adduunyadu ha idinku soo hagaato adarays iyo meel wax laydinku soo hagaajiyay yeesha ma nimanka hay-ad yaroo khayriyada oo xitaa account gaara aanan lahayn waa nasiib darrooyinka ku habsatay wey aqoontan lagu sheegay ree awdalla dee macalinimadu aqoon maayo waa education waa waxbarashada qofku sida wax loo baro unbuu yaqaanaa laakiin leadership baa loo baahan yahay leadership bare intellectualiska meesha miiska lagu wada fadhiisanayo lagu korkortamayo ee go'aan kale ee garamaya ayaa ree awdal ka maqan waxaan leeyahay dadka i dhegaysanaya war dadka lacagta loo dhiibo waa ammaana ilaahay ka baqa dadka ararkayna sidaa u eg xoolahaasi ammaana inagu tahay sida ay tahay ha loo gaarsiiyo barnaamijna ha loogu sameeyo guddiga gobolka awdal ee wadaadadana ha loogu wareejiyo وأنا قلت حامد سلطان علي علمي سلطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته